ugaas Salebaan Aadan Axmed ugaas Muhaajir oo kamid ah madax dhaqameedada gobolada Sool Sanaag iyo Cayn iyo dowlad deegaanka Soomaalida gaar ahaan beesha Jidwa Qabs ama iskuul bari iyo galbeed ayaa tacsi tiraanya lagu diray qoyskii iyo qaraabadii iyo eheladii uu ka baxay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Allah u naxariiste Cali Khaliif Galeyd oo ku geeriyooday magaalada Jigjiga maantana lagu aasay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. ugaas Muhaajir ayaa ummadda Soomaaliyeed qoyskii iyo qaraabadii uu ka baxay marxuun Cali Khaliif Galeyd uga tacsiyeeyay geerida naxdinta lahayd waxaana uu sheegay in Ilaahay u naxariisto ummadda Soomaaliyeedna samir iyo iimaan ka siiyo. anigoo ah ugaas Suleymaan Aadan Axmed ugaas Muhaajir waxaan halkan tacsi tiraanyada ka dirayaa geeridii ku timi Professor Cali Khaliif Galeyd madaxweynihii maamul goboleedka Khaatumo State of Soomaaliya ahaana ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya geerida naxdinta leh ku timi guud ahaanba ummadda Soomaaliyeed ku timi ayaan doonayaa inaan ka tacsiyeeyo. waxaan leeyahay inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun kullu nafsin daa'iqatul mawt naf kasta geeriday dhadhaminaysaa marka waxaan leeyahay ilaahay samir iyo iimaan guud ahaan ummadda Soomaaliyeed Allah ka siiyo samir iyo iimaan si khaasana ummadii uu madaxweynaha u ahaa gobolada SSC ama Khaatumo State of Somalia madaxweynaha ka ahaa si gaar ah ayaan uga tacsiyadaynayaa samir iyo iimaan khaasa Allah inaga wada siiyo dhamaanteenba si gaarana qaraabadii iyo qoyskii iyo carruurtii ehelkii uu ka tegay ilaahay samir iyo iimaan ha ka siiyo. inta haddaan ka gudbo ilaahay waxaan uga rajaynayaa in ilaahay raxmatan waasica siiyo jannatul firdawsa ilaahay geeyo dembigiisa in ilaahay dhaafo meel khayr qabta iyo jannatul firdawsana ilaahay ku risaaqo tabaaraka wa tacaala innagana samir iyo iimaan guud ahaan ummadda Soomaaliyeed si khaasana ummadda uu madaxweynaha ahaa ama gobolada aan taabtay ama qaraabadii iyo qoyskii iyo ehelkii samir iyo iimaan in ilaahay ka siiyo bedel khayr qabana ilaahay gobolada SSC uu ugu bedelo subxaanahu wa tacaala. runtii wuxuu ahaa nin qaa'ida oo qaa'idul umma ah oo runtii noociisa ay ku yar tahay ummadda Soomaaliyeed ay aad iyo aad ugu yar tahay buu ahaa oo qaali ah. waad garan kartaa ninka miisaankiisa Soomaali jacaylkiisa midnimo jacaylkiisa nabad raadintiisa laakiin tii ilaahay baa u timi oo tiisi bay noqotay.